السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaa jirtay qiso ay soo rareen ama ay tilmaameen culimada mufasiriinta qaarkood sida Sheekh Ibn Abi Hatim. qisadaasoo ay ku dhex sheegeen tafsiirka aayadda Quraanka Kariimka ee suuratu Nisaa ku jirta ee alla uu leeyahay aynama takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada. aayadaasoo tafsiirkeedu yahay meel kastoo aad ku sugan tihiin geeridu way idin haleelaysaa, marnaba kama baxsan kartaan haddaad doontaan dhismayaal iyo gasarro la adkeeyey ee ku dhex sugnaado. qisadaasi markaa wuxuu ka soo warinayaa Ibn Abi Hatim sheekh taabiciintii ka mida oo la oran jiray Mujaahid ibn Jabr. mujaahidna طبعا qisadan uu soo rarayay uu sheegaya waa qiso ka horeysay xilligii nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waxaana isaga badan tahay waxyaabaha lagala kulmay dadkii yuhuudda ahaa ee Madiina deganaa ama dhulka muslimiinta deganaa ee ay ka soo rari jireen ama kutubtoodii hore ku taalay. tan noocaas oo kaleana rasuulku ay noo fasaxay inaynu ka waranno oo ka warbixino, khaasatan wixii sharcigeenu uu si gaara u tilmaamay ama uu taageeray ama aan khilaafaynin. qisadan markaa cibro ayaa ku sugan, macnaha aayadan ay tilmaamtayna qeexaya oo cadaynaya. qisadaas waxa weeye reer ayaa waxay lahaayeen nin shaqaale ah. gabadhii guriga lahayd ayaa maalin maalmaha ka mida umushay. waxay dhashay inan yar ama gabadh yar. kadibna gabadhii guriga lahayd ee umushay ayaa ninkii shaqaalaha waxay ku tiri orodoo dab inoo doon. gurigii buu ka baxay. kadibna markii uu guriga ka baxay buu wuxuu la kulmay laba nin. labadii nin baa waxay u sheegeen 3 arrimood oo ku dhici doona. waxay weydiiyeen ugu horeyn, gurigan aad ka soo baxday yaa jooga? uu sheegay, wuxuu yidhi gabadh baa joogta umul ah, inan yar baanay umushay ama gabadh yar. waxay ku yidhahdeen haddaba gabadhaa yare imika dhalatay horta way zinaysan doontaa 100 jeer ama 100 jeer ayay zinaysan doontaa oo xumaanta ay ku dhici doontaa. waa marka labaade waad guursan doontaa, adaa guursan doona markay weynaato iyadoo 100 jeer xumaan soo samaysay. waa marka saddexaade iyadoo xaaskaaga ah ayaa waxa dili doonta caaro ayaa sabab u noqon doonta. caaradan guriga iyo meelaha ku baxda ayaa dili doonta oo ay u dhiman doontaa. ninkii uu argagaxay, kadibna intuu soo noqday wuxuu yiri maxay waxa soo dheeliba u dhacayaan soo kama bilaabmaysa inanta yar baan imika dilaya. wuxuu soo qaatay mindi, inantii yareed buu caloosha oo mindi ka geliyay. kadibna wuu baxsaday isagoo isku qanciyay inantaa yari inay dhimatay. warkii nimankaasi u sheegayeenna inuu waxa weeyaan aanu marna xaqiiqoobaynin. uu iska tagay wadan kale, uu iska tagay, uu iska shaqaystay, xoolo helay, nin hantiilo oo weyn buu noqday. gabadhii yareedna markii uu sidaa ku sameeyay uu baxsaday baa hooyadeed ay dad u geysay. inantii yareed waxa weeye may dhiman, meeshiina waa la tolay, uu midida ka geliyay. inantii yareedna way iska kortay, way weynaatay, waxayna noqotay magaaladeeda hablaha ugu quruxda badan bay noqotay. muddo dabadeed ninkii soo shaqaystay oo xoolo wata ayaa magaaladii yimid oo isle inantiina debada hore ay dhimatay, hawsheediina iska dhamaatay. magaaladii markii uu yimid ayuu gabadh reerahooda ah ayuu wuxuu yidhi waxaad ii doontaa oo ii raadisaa gabadh aad iyo aad u qurux badan oo aan guursado. kadibna gabadhii bay raadisay, gabadhii bay usoo heshay. gabadhii baa loo keenay, uu ku qancay, uu guursaday. markii uu guursaday ee ay habeenkii guriga isugu yimaadeen ayay iswaraysteen, qof kastaaba iyo noloshiisu siday ahaan jirtay. sheekadii buu uga sheekeeyey. kadibna waxay tii gabadhii aad beriga mindida gelisay ee aad ha dhimato waa aniga. meeshii uu ka geliyey mindida ayay tustayoo la tolay.
kadibna mar haddii dee uu guursaday oo kharash kaga baxay wuxuu hawshiina uu iskaba ilaaway uu iska guursaday oo gabadhii muu eriyin manuu furin uu iska sii qabay nolosheedu sidoo bay ku socotay kadibna maalintii dambe ayay iyagoo guriga wada fadhiya ayaa waxay arkeen caaro guriga dhex maraysa kadibna ninkii baa qisadii xusuustay wuxuu ku dhinan yahay niman baa berigaas aan mindida ku gelin jiray aan doonayay inaan ku dilo niman baa 3 arrimood ii sheegay arrinka koowaad ay sheegay waxay ku yiraahdeen gabadhan yar ee imika dhalatay adaa guursan doona waliba waxaad guursan doontaa iyadoo 100 jeer xumaan soo samaysay xumaan ma soo samaysay waxay tiri haa waan soo sameeyay tiradeeda ma garanayo laakiin xumaan badan baan soo sameeyay wuxuu hadaba 2 arrimood saddexdii ay sheegeen labaan hayaa caaradiina waatan waxaan malayn caaradani waa tii ku dili lahayd intay kacday bay tiri caaradan aniga wax yeelaysa intay ka meeshii ay saareed ka soo eriday oo dhulka u soo eriday ayay ku joogsatay kadibna caaradii way iska dhimatay laakiin sunteedii ayaa faryarada ka gaadhay suntii baa dadda jirkii oo dhan ku fiday bartii ayay ku dhimatay qisadaasi markaa waxaan uga gol leeyahay dad badan baa laga yaabaa warwaraya tiiraanyo inuu ku hayo ama ay ka fakarayaan xanuun wax la'aan geeri iyo wax la mida inay warwar ku hayaan waxaan doonayaa u sheego wixii lagu qoray ku seegi maayaan adiga waxa ku saaran adoon ahaan inaad dadaasho oo wixii asbaab ah ee sharcigu kuugu tala galay inaad asbaabta qaadato laakiin meesha cirib dambeedkaagu ku dhammaan doono goorta aad xanuunsan doonto goorta aad dhiman doonto goorta aad faqiir noqon doonto waxaasoo dhani wax adiga kuu yaalla ma aha haddii ilaahay kuugu tala galayna meel allaale meelaad kaga baxsanaysaa ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala haynagu anfaco qisadaas macnaha ay sheegayso oo run ahaantii tafsiir u ah hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi aynamaa takuunuu yudrikkum almowtu walow kuntum fii buruujin mushayada ha ka baqin geeri xanuun ha ka baqin laakiin asbaabta qaado iyo wixii aad isleedahay way ku anfacayaan laakiin waxba ha ka warwarin sababtoo ah iska fimaysaan xilligii lagugu talagalay wallahu tacaala aclam وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين